zawjaha ninkeeda ma adeeci karto fii macsiya wax macsiyaahoo dembi ah lama ogola waana xaaraan haweenaydu inay ninkeeda ku adeecdo ayuu u baab yahay sheekhu raximah ullahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa haweenayda waa ka xaaraan ninkeeda inay ku adeecdo wax dembi ah ama macsiya inay ku adeecdo xaaraan wey leannu nabigu waxaa ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam inuu yidhi laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ruux makhluuqa mahmaa kaana makhluuqaasu wuxuu doonaba ha noqdo laguma adeeci karo fii macsiyati alkhaaliq ilaahay khaaliqa caasi qof laga yeelayo o lagu adeecayo ma jirto qaala shaykhu raximah ullahu tacaala xadaثanaa khalaad bnu yaxya huwa alkuufi qaala xadaثana ibraahim bnu naafic almakhzuumi can alxasani huwa bnu muslim ibnu yanaaqi wey aladii takarara fii saxiixi muslim ibnu yanaaqa saxiix muslimku noogu soo laalaaban jiray can safiya waa safiya binti shayba loola jeedaahe can caaisha anna imra'atan haweeney haweentaasoo min alansaari ansaarta ka mid a ayaa zawajad ibnatahaa gabadheedii guurisay fatamacadda waxaa daatay shacru ra'sihaa gabadha madaxaa tintii madaxa ka daadatay tintii madaxoo dhan ayaa ka daadatay gabadhana waa la qabay oo gabadha la qabay ahayd xanuunkaasaa ku dhacay fa ja'ad markaasay timid markaa haweenaydii ila nebiyi u timid sala allahu calayh wasalam fadakarad daalika sha'nigaasay lahu nabiga u sheegtay sala allahu calayh wasalam gabadha in tintii ay ka daadatay ayuu u sheegtay faqaalat waxay tidhi haweenaydii ina zawjahaa ninkeedii ayaa amaranii gabadha ninkeedii amaranii wuxuu i amray anasila inaan xiriiriyo fii shacrihaa gabadha tinteeda shay-an wax kaloo ay tin ka dhigato inaan la xiriiriyo ayaa ninku i amray saasay leedahay waa islaantii weyneedu yacnii haweenayd gabadhan la qabo hooyadeeda saa dhehayso ninkeediiyaa wuxuu i amray in tinteedii aan xiriiriyo oo waxyaalo maaragtaahay tin macmala loo sameeyo tin macmaloon jirin inaan gabadha u sameeyo saasaa ninku i amray ee ka warran mas'aladaasi ma bannaan tahay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa qaala rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa ma bannaanuu yidhi innahu sha'niye qad lucina waxaa lacnad lagu riday almuwasilaatu haweenka tintooda wax kale ku xidhiiriya oo tinaysan lahayn iska dhigdhigayo iska keenaya waa la lacnaday yuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka masaladaasi laguma adeecayo ninka maxalu shaahidka sheekhu intaasu ninkii muxuu jecel yahay yacni timo macmala in gabadhiisi ay u qorxoonaato timo macmala loo sameeyo ninkii saasuu gabadhii amray masaladiina nabigaa la weydiiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rasuulkuna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi innahu qad lucina almuwasilaat gabadha muwasilaadka ah oo tintoodii xidhiiriya lacnadaa lagu ridi u yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam sawaa'un kaana alwaslu bishacrin aw gayrihi masaladu xaaraamu gabadha waxa ay tinteeda ku weynaynayso oo tinteeda ay ku badinayso ha noqdo tin kale oo macmala waxyaala hadda waxaa jira adduunku aad is leedahay yacni waaba tin ruma oo la sameeyaa jira waxyaala tin ruma aad is leedahay oo ay farsameeyaanaa jira taasi waa soo geli waa xaaraan waxaa kaloo la mid a aw gayrihi ama wax kale ha noqdaan oo tin aan ahayn waa la mid ah haweenaydii maalan waxaa ka mid a inay maaragtaahay gelinayso maryo iyo intay tinta geliso ay iska dhigayso dadkii ay yacnii iihaam gelinayso waxaan meesha ka kuusanay inay tin yihiin inay meeshii gelinayso xadiiskanay soo geli waa xaaraan lama ogola haweenaydii tintu ku yar tahay inay wax kale ama tin bini aadam ha noqdo ama wax kaloo la farsameeye ha noqdaan ama maryo ay ku weynaynayso ha noqoto waxaasoo dhan lama ogola oo tinta lala xiriirinayo liannahu nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay sinfaani min ahli nnaari lam arahuma laba qoloo ahlu naarka ka mid a aniga xilligaygan ma arkin uu yidhi laakiin aakhiru zamaankay iman doonaan waxaa ka mid ahaa nisaa'un caariyaatun kaasiyaatun ru'uusuhunna ka asnimati albukti uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam waxaa iman doonaa haweeney madaxooda aad u malaynayso kuriskii geela waxbay ku cubeen yacni tin ma ah waxbay ku cubeen dhar iyo waxbay ku buuxinayaan markaasaad u malaynaya kurus geel oo kale ay ka dhigayaan marka masalada noocaas oo kale ah shacarka keliya ma aha waxa xaaraanta ah tin keliyahoo macmaloo lagu samaynayo lagu buuxinayo ma aha dhar haddii lagu buuxiyo ayadana masaladu xaaraanay noqon lama ogola sidii ilaahay kuu abuuray ayaa kuu qurux badan quruxdu waxay ku jirtaa abuurista ilaahay jala jalaaluhu qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabu qaala tacaala jala jalaaluhu ilaahay wuxuu yidhi wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadaa falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr
qaala tacaala ilahi wuxu uhi jala jalaaluhu wain imra'atun haweeney khaafat min bacliha